kusoo dhawaada falanqayn ku saabsan Israel oo xaaladda ay ku xumaatay Mareykanka oo Israel u diraya nidaamka difaaca gantaalada iyo ciidamo military ah si ay u difaacaan Israel maadaama nidaamkii difaaca Israel uu shaqayn waayay isla markaana madaafiicda laga soo tuurayo wadanka Lubnaan iyo Falastiin ay ku hoobanayaan xarumaha muhiimka ah ee militariga iyo kaabiyaasha ciidamada militariga ee Israel. waxaynu kaloo falanqayn ku samayn doonaa caawa Iran oo sheegtay in ay joojisay xiriirkii tooska ahaa oo ay la lahayd Mareykanka. arrintaasi maxay ka dhigan tahay xaaladda bariga dhexe, maxay ku soo kordhin kartaa? falanqayn kooban ayaanu iyana ku samayn doonaa iyo macluumaad cusub oo weli ka soo baxaya askartii Israel ee lagu laayay weerarkii diyaaradaha droonka ee kooxda wax iska caabinta ee reer Lubnaan ay ku qaadeen mid ka mid ah saldhigyada ugu muhiimsan ciidamada Israel ee waqooyiga ku yaala. waxyaabihii ugu dambeeyay ayaanu eegi doonaa iyo xaaladaha dagaalada tooska ah ee ka socda xuduudda Lubnaan iyo Israel. bal marka hore aynu ku bilowno, Mareykanka waxa uu sheegay in Israel uu u diri doono nidaamka difaaca gantaalada iyo ciidamo military ah si ay gacan uga geystaan xoojinta difaaca cirka ee Israel kadib markii gantaalo laga soo tuuray Iran horaantii bishan ay ku hoobteen gudaha Israel. bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka waxaa lagu sheegay in madaxweyne Joe Biden uu amar ku bixiyay in nidaamka difaaca hawada Mareykanka ee THAAD la yiraahdo iyo kaabiyaashiisa loo diro si ay u difaacaan Israel maadaama xaaladda Israel ay aad u culus tahay. Iran ayaa ku dhawaad 200 oo gantaalada balistiga waxa ay ku riday Israel 1 Oktoobar. militariga Israel waxa ay sheegeen in intooda badan la qabtay, balse tiro badan oo ka mid ah madaafiicdaasi ayaa ku dhacay bartamaha iyo koonfurta Israel. Israel weli ma aysan sheegin sida ay uga jawaabi doonto, laakiin wasiirka gaashaandhigga Israel waxa uu sheegay in Israel ay duqeyn doonto xarumaha kaabiyaasha dhaqaalaha iyo weliba nuclearka ee dalka Iran. Iran ayaa dhankeeda sheegtay in aysan aqbali doonin weerar kasta oo Israel uga yimaada. waxay sheegtay haddii weerar cusub uga yimaado Israel in dagaalka rasmiga ah uu bilaaban doono. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in nidaamkan difaaca hawada ee Mareykanka ee THAAD la yiraahdo ay muujinayso sida ay uga go'an tahay Mareykanka inay difaacaan qalad iyo saxba Israel, taas oo dalalka waaweyn ee galbeedka qaarkood ay kasoo horjeesteen. Mareykanka ayaa nidaamkan THAAD u diray bariga dhexe kadib markii Xamaas ay weerartay koonfurta Israel 7 Oktoobar sanadkii hore. waxay 2019 sidan oo kale ay nidaamkan ay ugu dirtay Israel 2019 halkan nidaamkan waxaa yaala Iron Dome la yiraahdo iyo sidoo kale nidaamkan hadda ee Mareykanka uu soo saaro ee difaaca hawada. intoodaba waxa ay difaaci laayihiin Israel oo ka difaaci laayihiin madaafiicda kooxdan wax iska caabinta ee reer Lubnaan iyo sidoo kale Iran waxa ay sheegtay in gantaalkeedii 1 Oktoobar ay jawaab u ahayd dilkii ay Israel u geysatay hogaamiyihii kooxda wax iska caabinta ee reer Lubnaan ee Nasrallah iyo sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidanka ilaalada kacaanka Iran ee Beirut lagu dilay iyo hogaamiyihii Haniya ee Tehran isagana lagu dilay. Israel waxa ay toddobaadyadii la soo dhaafay ay si weyn u kordhisay ololaheeda ka dhanka ah Xisbillah ee dalka Iran, iyadoona sidoo kale duqeymo dhinac fara badan ah ka geysatay Beirut iyo koonfurta wadanka Lubnaan. marsii horeysay ayaa Israel iyo sidoo kale kooxdan wax iska caabinta waxa ay maalin kasta ay isku weedarsadaan gantaalada waaweyn tan iyo Oktoobar horaanteedii, waxaana halkaasi khasaare xoogan uu ka soo gaarayaa ciidamada Israel oo dagaalka dhulka ee xuduudda ka socda aysan wax horumar ah ka gaarin, isla markaana qaraxyada dhulka la geliyo ee miinooyinka ay yihiin kuwa ugu waaweyn ee Israel ciidamadoodu khasaaraha uu ka soo gaarayo. haddaba nidaamkan difaaca hawada ee Mareykanka uu ku faano ee THAAD waxaa Mareykanka uu hoosta ka xariiqay in walaacan sii kordhaya ee ku saabsan gantaalada plastiga ee Iran inay tahay waxa hadda ugu weyn ee ka jawaabi doona ama ay uga jawaabi doonaan arrintan. nidaamkan difaaca ee THAAD waxa uu ku darayaa lakab kale oo kor u qaadaya ee difaaca, isla markaana Israel waxa uu ka difaacaya gantaaladan waaweyn ee Iran iyo sidoo kale kooxaha ay taageerto ee bariga dhexe uga imaanaya. ninka sameeyay nidaamkan waxaa la yiraahdaa Lord Martin,
waxa uu sheegayaa in nidaamkan uu yahay mid aad waxtar u leh islamarkaana gabaad siinaya meesha la dhigo nidaamkan difaaca hawada ee THAAD oo lagu soo waramayo in ay gaarayaan ilaa 200 oo kilomitir ayaa leh nooc kala duwan oo gantaalada halka qaraxyadana ay ka hortagaan difaacan gantaalada ee Israel ayaa ka kooban ama difaaca gantaalada ee Israel ayaa ka kooban Iron Dome oo loogu talagalay gantaalada ridada gaaban iyo David Sling oo loo isticmaalo difaaca hubka ridada dheer iyo gantaalada cruise loo yaqaano iyo Arrow 2 iyo Arrow 3 oo ka dhan ah gantaalada balaastigada oo laga soo tuuro meel 100 ama 1,000 kilomitir u jirta intaasoo nidaam oo difaac oo Israel ay leedahay haddana way ka difaaci laayeen hubkan ee xoogan ee farsamada leh ee Iran ay haysato oo waliba 200 oo kaliya lagu tuuray Israel sidaas lamid ah kooxdan ee wax iska caabinta ee reer Lebanon iyaguna iyo kuwa kale ee reer Falastiin iyagana madaafiicdan ay ku garaacayaan Israel intaasoo nidaam oo difaac hawa ah oo ay leeyihiin Israel way ka difaaci laayeen kahortagidda gantaalada plastikada ayaa si gaar ah hadda ay ugu adag tahay Israel inay iska difaacdo tanina waxay xaqiijinaysaa haddii dagaal rasmi ah uu dhex maro Israel iyo Iran in Iran ay ku awood sareyso isla markaana ay doonayso in ay Iran ay gantaaladeeda ay meel fog ay gaaraan haddaba xogo dhinaca sirdoonka ah oo caawa ka soo baxaya bariga dhexe waxay sheegayaan sababta Mareykanka uu hadda nidaamkan difaaca hawada iyo ciidamadiisa militariga uu u geynayo Israel si ay u difaacaan inay tahay in Israel ay ka baajiyaan in aysan ka jawaabin duqeyntii 1 Oktoobar ee sanadkan ay Iran ay ku qaaday Israel marka Mareykanka wuxuu doonayaa in Israel aysan ka jawaabin si aysan dagaalka rasmiga ah ee Israel iyo Iran uusan u bilaaban haddii dagaalkaas soo bilowdana dabcan Mareykanka waxa uu doonayaa uu ku qasban yahay inuu galo isla markaana uu difaaco Israel waxay leedahay waxaan ka jawaabaynaa weerarkaasi waxayna duqeynaynaa xarumaha nuclearka tamarta iyo kaabayaasha muhiimka ah taasoo Mareykankana uusan raali ka ahayn oo hadda uusan doonaynin inuu dagaal galo maxaa yeelay Mareykanka waxaa ku xiriira Ruushka waqooyiga Korea iyo sidoo kale dalka Iran oo dhammaantood meel taaganoo waxaa loo cararayaa adduunkan ama koonkan maanta aynu joogno yaa ku awood badnaanaya marka Mareykanka hadduu dagaal uu galo oo Iran isaga isku dhacaan dabcan waxaa la gilgili doonaa hoggaanka Mareykanka ee adduunkan marka Mareykanka waxa uu hortaagan yahay hadda Israel oo waxa uu leeyahay hadduqeynina xarumaha nuclearka ee Iran taasoo dagaalkii rasmiga ah uu ka dhex bilaaban karo haddaba khudbaddii hogaamiyaha dalka Iran oo jimcihii dhaweyd uu jeediyey oo ay ka qayb galeen dhammaan xubin kasta oo dowladda Iran ka tirsan waxa ay ahayd fariin cad oo Iran ay direysay oo ah dagaal diyaar baynu u nahay bannaankan joognaaye Israel ha soo baxaan fariin noocaasi ahayd maadaama Israel ay beegsanaysay hogaamiyaasha sarsare ee Iran iyo sidoo kale kuwa sarsare ee kooxaha bariga ee dhexe ku sugan ee ka soo horjeeda markii hore maadaama si gooni ah ay u beegsanaysay markan fariintii ay hogaamiyaasha Iran iyo Ayatollah Ali Khamenei ay jeediyeen ee jimcihii masaajidka ku soo bandhigeen waxay ahayd diyaar baan nahay Israel diyaar ma tihiin wayahay haddii aynu u galno falanqeyn kale oo ku saabsan isla xaaladda bariga dhexe Iran ayaa caawa gabi ahaanba waxay joojisay xiriirkii tooska ahaa ee kala dhexeeya Mareykanka xaaladdu waa khatar kanaalo aan rasmi ahayn oo unofficial journalist la yiraahdo ayaa waxaa laga sameeyay Cumaan sida ay sheegayso wakaaladda wararka ee Iran ee Faris ma aragno bay Iran uu yiri wasiirkooda arrimaha dibadda ma aragno wax sabab ah oo wada hadal ah inaan sii wadno oo Mareykanka aan la sii wadno ilaa aan arrimaha hadda taagan aan lahayn buu yiri wuxuu wasiirka arrimaha dibadda Iran intaa ku daray intaa kadib waxaan go'aansan doonaa inaan galno wada xaajood cusub oo aynu la galayno Mareykanka buu yiri sidaa darteed gabi ahaanba waan joojinay xiriirkii tooska ahaa ee Mareykanka nagala dhexeeya arrintan waa khatar dabcan ogow in xiriirkii rasmiga ahaa ee Mareykanka iyo sidoo kale Iran uu go'o dabcan waxay la xiriirtaa arrimahan Mareykanka faragelinta bariga dhexe taageerida Israel inuu Mareykanka uu doonayo ama uu ku adkeysanayo Israel inay xaq u leedahay in isdifaacdo halka Iran uu diidayo inay xaq u leedahay in isdifaacdo marka arrimahaas oo meesha yaala awgeed ayay Iran ay hadda xiriirkii rasmiga ahaa ee Mareykanka ay u joojisay dabcan xiriirkan haddii uu go'ana waxaa ku soo xiga in safiirada labada wadan ay u kala yeertaan
kadibna xiriirkii la jaro oo dagaalkii rasmiga ahaa ee Mareykanka iyo Iran uu bilowdo. Safaaradda Mareykanka ee dalka Lubnaan ayaa iyana ka hadashay xiisadihii ugu dambeeyay ee ka dhacay xuduudda, inkastoo ay ku boorinayso muwaadiniintooda inay degdeg uga baxaan waddanka Lubnaan, halka dalal kalena ay sidaa oo kale ay sameynayaan. Haddana Mareykanka waxaa la leeyahay wuxuu og yahay in dagaalkan Lubnaan ka dhacaya uu mar walbaba uu soo dhow yahay xilli dagaalada xuduudda Lubnaan ka socda ay yihiin kuwo isu soo taraya oo aanan wax maaragtay horumar ah aysan ka sameynaynin ciidamada Israa'iil ee halkaasi ku sugan. Shalay intiini ogeyd Israa'iil mid ka mid ah saldhigyada ciidamada oo ku yaala waqooyiga Israa'iil ayaa waxaa duqeeyay diyaaradaha droonka ah ee kooxda wax iska caabinta ee reer Lubnaan, waxaana halkaa ku geeriyooday 4 askari. Waana weerarkii ugu xooganaa oo diyaaradaha ay sameeyeen. Sirdoonka Israa'iil waxay leeyihiin weerarkaasi wax weyn aynu ka baranaynaa, waana tan keentay hadda Mareykanka inuu soo dedejiyo in nidaamka difaaca hawada uu farta ka saaro, isla markaana ciidamada militari oo dheeraad ah uu keeno bariga dhexe gaaran Israa'iil si Israa'iil ay u difaacaan. Macluumaadkaasi iyo falanqayntaasi daawadayaal caawa waa kuwii ugu waaweynaa ee bariga dhexe ee adduunka ka taagnaa. Si aad u hesho kuwa kale, fadlan ku xirnow oo subscribe saaro channelka.